jimco wanaagsan ku soo dhawaada qodobada wararka idaacadda Banaadir doorkan idin heesana waxa ugu waaweyn madaxda ugu sareysa dalka ayaa maanta ka qayb galay isku soo bax lagu duceynayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo weerar ka dhacay Muqdisho shabaab ay ku dileen madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay in garoonka Banaadir Stadium lagu magac daray gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dawladda markii al-shabaab ay kala wareegeen deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose al-shabaab ay kordhiyeen qaraxyada ay ka geystaan Muqdisho faafayna dheeraad ayaa ka soo baxaya ganacsada caan ah oo lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada maamulka Jubbaland qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaashaanka u dooruray war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya maamulka galmudugna waxay digniin culus u direen odayaal ka baxay deegaanada maamulkaas adduunka intiisa kale wararkan doorkan idin kaga heynana waxa uu dooran dawladda Iiraan ayaa sheegtay inay xuquuq u leedahay inay ka hortagto joogitaanka Israa'iil ee isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ee gacanka Khaliijka